waxaa loo diiwaan geliyay wiilka ugu gamcaha waaweyn leh adduunka sidoo kale gamcihiisa gacan kastoo ka midana waxaa ku taalla ilaa 6 furood haddaba koritaanka jirkiisa 70% waxaa qaadanaya gamcuhu kaliya waxaan maanta idinla wadaagi doonaa taariikhda wiilkan iyo dhacdadan ku dhacday foosha xun leh iyo sababta cudurkan ugu sii fideeyay ku soo dhawaada mawduuceena maanta haddaba wiilka yar waxaa lagu magacaabaa Kaliim waxa uu ku dhashay dalka India da'diisu waxay jirtaa 8 sanadood oo kaliya waalidiintii waa waalidiin aad u faqiira oo hodantinimada aad uga fog haddaba wiilkan yari waxa uu la dhashay cudur naadir ah oo adduunka boqolkiiba hal ku dhaca cudurkaas oo kaliya asiibaya gamcaha kaasoo gamcahana ku sababaya inay koritaan xad dhaaf ah sameeyaan haddaba wiilkan yari maalinba maalinta ka dambaysa wiigka ka dambeeya bilba bisha ka dambaysa sidoo kale sanadka ka dambeeya gamcihiisu aad bay u sii korayeen koritaanka jirkiisa 70% gamcuhu kaliya helayay ilaa markii dambe uu xidhan kari waayay dharkii sidoo kale uu wax ku qabsan kari waayay gamcihii uu wax ku qaadi kari waayay gamcihii sidoo kale bararkaasi waxa ay ku sababeen inuu dhexgali waayo asaaga dhigii ah haddii waxbarasho noqon lahayd iyo haddii goobaha lagu ciyaaray lagu madadaalaysan noqon lahaayeenba taasoo sababaysa in ciyaalka qeyrkiiya ay ka baqayaan gamcahan aadka u waaweyn haddaba waalidiintii oo la weydiiyay su'aalaheed maxaad wiilka u geyn weydeen dhakhtar waxa ay ku jawaabeen ma awoodno mase ma geyn karano dhakhtar aad qiimihiisu banay u sareeyo taas ayaa sababtay in wiilkan maanta uu halka ku soo gaadho cudurkan waayo aabihii waxa uu ka shaqeeyaa meelaha biraha lagu sameeyo ee albaabadii waxyaabaha soo saara taasina waxay ka firtaa oo dabooshaa baahiyaadka guriga ka jiro kaliya haddaba maalin maalmaha ka mid ah waxa isbedelay nasrigii waxa isbedelay wixii ay ku hamiyeen oo dhan waxa uu soo galay oo nasiibkooga noqday dhakhtarkaasoo damaanad qaaday dhammaan wixii caafimaadkiisa ku baxayo haday noqon lahayd daawooyinkii haday noqon lahayd qaliimadu gal laha iyo wax walo oo caafimaadkiisa ku baxayaba dhakhtar baa u yimid kuna idhaana ku kafeenaya waxa uu galay qaliimo waxa la siiyay daawooyin waxa la deeyay muddo ugu dambeyn gacmihiisa way soo yaraadeen laakiin ma ay soo noqon sidii la rabay waana lagu guuleystay qaliinkii laakiin gamcihiisu awal sida u waaweynaayeen maanta waa ay ka soo aad bay uga soo yaryihiin waana ilaahay wax ugu mahadnaqo ayuu yiri maanta waa uu awoodaa inuu koob qaado waa uu awoodaa inuu meedho soo kalena waa uu awoodaa inuu waxbarashadii tago maadaama maanta gamcihiisa uu soo kaliya wax ku qabsanayo taas ayaa qaliinkii iyo surgery-gii loo sameeyay uu ka faa'iiday maanta wuxuu yeeshay future ifaya maadaama waxbarashadii uu awooday maadaama uu awooday inuu ciyaalkii qeyrkii dhex galo maadaama uu awooday inuu sameeyo waxa allaaliyo waxa uu jecel yahay una awal u suurtagelay mucjisooyinka Allah way badan yihiin runtii waxaan ilaahay ka baryaynaa dhammaan inta xanuunsanaysa inuu caafimaad sareecana siiyo inta caafimaad qabtana inuu u siyaadiyo intii adduunkan aynu ku noolahay waxaan ku arkaynaa mucjisooyin aynaan soo koobi karayn waana mucjiso aad u la yaab leh wax walna oo ilaahay keena cudur walow ilaahay soo dejina dawadiisu soo wada dawadiisa la socota maanta mawduuceena waxaan kaga baxaynaa inahaas wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh